wuxuu yidhi xaaskaygii oo uur leh ayaan ka soo tegay uu yidhi bilaadu shaaman uga soo tegay waxaan yidhi cilmi aan doonanahe laba adiga khiyaar u leh inaad isugto intaan caalim buuxa ka soo noqonayo inaan haddaba ku furo waanan ku xayirin markaasay tiri ilaahay dartiisaan kuu sugo ilaahay dartiis kuu sugo intaad rabto maqnaaw dalabulcilmi intaad doonto ku maqnaaw waa iska soo tegay u yidhi imaam maalik ayaan markaa iska ag fariisto uu yidhi sheekh imaam maalik waa shaykhu lmadiina u ahaa madiinatu lmunawara sheekhii markaa ugu weynaa oo cilmiga ka faafinayay masjidka nabigu wax ka akhri jiray sala allahu wasalam wbaaraka calayh imaam maalik waana ku aasan yahay meesha baqiic masaajidka agtiisa lagu aasay sheekh qubraha baqiicu ku jira imaam maalik raximah allahu tacaala marka sheekhiyaa markuu yidhi iska ag fadhiistay imaam maalik ibnu anas 20 sano dib uma laaban uu yidhi 20 sano maalin maalmaha ka mid wuxuu yidhi anigoo xalqadii sheekha imaam maalik fadhiya ayaa nin dhallinyaraahu xalqadii uu soo istaagay markaasuu yidhi afiikum ibnu اlqaasim cabdiraxmaan ibnu qaasim intiinan ma idinku jiraa cabdiraxmaan ibnu qaasim nin la yidhaha ma idinku jiraa markaasaa aniga farta taagu yidhi waa aniga cabdiraxmaan ibnu qaasim waa igu soo boodu yidhi markaasuu iskay duubay markaasuu meel walba iga dhunkoodu yidhi fawajadtu minhu raa'ixata alwalad waalid iyo waladkiisa hadda waa isku soo carfaane caraftii cunugayga xoogaa aan dareemo yidhi waraamu kan waladkaagiiyo kii ur ku jira markaasuu wuxuu yidhi aabbahayaa tahay cunuggii waxaan ahaa uurka ku jira uurka cunuggaad uga soo tagtay ayaan ahayuu yidhi qisada qaadiciyaada ku sheegay kitaabkiisa la yidhaaho tartiibul madaarik oo culimmada maalikiyada uu uga tarjameeyey culimada maalikiyada uu tarjamo u tahay marka tarjamo dheeruu u caqiday cabdiraxmaanka kitaabka noogu soo laalaabtay tarjamo dheer uu ka sameeyey tarjamadii uu qisadan ku soo dhex daray marka qisadan ku soo dhex daray marka ahl iyo naf iyo nafiisba diinta uga qaalisanayd ayaga ahl iyo naf iyo nafiisba diintaasa uga qaalisanayd waa intaas hore wuxuu yidhi markaan fiiriyey waa nin gari laho aniga ila eg ha 20 sano waa fiiriyey buu yidhi war maxaad meeshan yaa kuu soo tilmaamay wuxuu yidhi intaasoo maragtaa naga maqnayd oo tilmaantaan midoo xajaan hadda ku imid uu yidhi wiilkiia soo xajinaya wiilkiia soo xajinaya yidhi xajaan ka imid marka maadaama xaj aan ku imid ayaa igu yidhi aabbaha allayleh waa inaad indhaha kusoo markaa ku soo kuulatid oo indhaha ku soo qabowsato aabbaha saasaan marka kuu soo raadiyey yidhi marka waa fadliga cilmigay arkayaan oo u muuqda diin iyo cilmi waxa ay tahay ay u jeedaan oo u muuqda nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh wuxuu yidhi innahu layastakfiru xadiiskii tirmidi iyo imaam axmed labadooda ay warinayeen waxaa u dembi dhaaf dalba lilcaalim man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxiitaanu fi اlbaxri malaayiga xataa badda ku jira waa u ducaynahay qofka diinta barta malaayiga badda ku jira xataa waa u ducaynahay qofka diinta barta marka ilaahay hana waafajiye waa dhaxalkii nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh waa cilmigii khaaska u ahaa nabigeena salى اllahu عalيه wasalam iyadoo cilmiga dhan nabigeena salى اllahu عalيه wasalam laga wada bartay oo mucallimkii cilmi walba uu yahay nabigeena salى اllahu عalيه wasalam fiqhigii tafsiirkii naxwihii wax walbaba ay nabiga xaggiisa nooga yimaadeen salى اllahu waslm wbaaraka calayh kana waa khaasulkhusuuskii cilmiga nabigeena marka wuxuu iska leeyahay yacni nasiib gaara qofkii cilmigan wakhtigiisa ku bixiya waa sunnatu rasuuli اllah salى اllahu عalيه wasalam waa alcilmu اlkhaasu lirasuuli اllah salى اllahu waslm wbaaraka calayh sunnadii cilmiga gaarka nabiga u ahaa salى اllahu waslm wbaaraka calayh walidaalika ibnu xibbaan kitaabkiisan saxiixa tarjamo dheer uu u sameeyey intuusan axaadiista bilaabin fadliga axaadiista iyo sunnada nabiga salى اllahu عalيه wasalam fadliga ay leedahay uu tarjamo u sameeyey ibnu xibbaan markaasu wuxuu tarjamada ku yidhaahaa wa cilmu nabiyina salى اllahu عalayه wasalam sunnatuhu nabigeena cilmigiisa u gaarka ah waa sunnadan uu yidhi ibnu xibbaan fii saxiixihi faman tacaraa can macrifatiha qofkii cilmigan sunnada nabiga ka dharbeela barashadiisa lam yakun min waraثati اlambiyaa
ma soo gelayuu yidhi dadkii ambiyada dhaxlay lannu cilmigan waa cilmigii khaaska u ahaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh iyadoo culuumta dhanba nabigeenna sala allahu calayh wasalam uuna baray oo xaggiisa ay naga soo wada gaareen ibnu xibbaan iyo ahlulxadiisku waxay yidhaaheen cilmigan waxay ku tireen cilmu sunna cilmigii khaaska u ahaa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka wuxuu yidhi cilmu nabiyina sunnatuhu ibnu xibbaan fii saxiixih nabigeenna cilmigiisii khaas ku ahaa waa sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam faman tacaraa can macrifatiha lam yakun min warahati alambiyaa qofkii cilmigan barashadiisa ka marnaada oo cilmigan baan xadli laga siin warahatu alambiyaa ba ka mid maahu yidhi ma gelayuu yidhi xadiiskaas ilaahina waafajiye subxaanahu wa tacaala